kulan lagu soo dhaweynayay isla markaana uu cashar ku bixinayay barbaariye Bashiir Cali Xuseen ayaa lagu qabtay xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta ee magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa ugu horeen waxa ka hadlay golaha abwaanada, taliyaasha kooxaha dalka iyo qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Bashiir Cali Xuseen soo dhaweyntiisii wali way socotaa. Wala kulmay hawlada waabari, wala kulmay kooxda Hiddo, wala kulmay kooxda Horseed, wala kulmay kooxda Onkod dhammaantoodna warar badan iyo kulan iyo wada sheekaysi badan dhacmaray. maantana halkan ayuu ka soo jeedin doonaa insha Allah ta'ala dardaarankii iyo dadaalkii iyo dhiirigelintii uu ugu talagalay fanaaniinta Soomaaliyeed inuu la wadaago. waxaan u soo istaagay meeshan inaan idin iraahdo soo dhawaada dhammaantiin. waxaan soo dhaweynaynaa anagoo ku hadlaya magaca kooxda Onkod staad sare oo qiimo weyn ku leh dalka iyo dabadaba Bashiir Cali Xuseen alfanaan ayaan soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay Bashiir waa lagu soo dhaweeyay waana mudan tahay in lagu soo dhaweeyo. maanta waxa weeye inaan wax ka dhageysanaan oo nimid halkan laakiin aan wax ka sheegno uma aanaan wixii laga sheegi lahaa waa sheegayeen hore lagaaga sheegay kooxo dhan baad la kulantay waa lagu soo dhaweeyay. waxaan ku leenahay soo dhawow. barbaariye Bashiir Cali Xuseen ayaa ugu horeenba halkaasi waxa uu ku soo bandhigay casharo ku aadan xagga fanka abwaanka waxa laga doonayo jilaaga iyo heesaha iyo waliba aadaabta xagga fanka. suugaan maanta waxay isugu soo ururtay hadal ayay isugu soo ururtay. hadalkii laba u qaybsamay wuxuu noqday tix iyo tiraab. hadalka lagu hadlayo maanta oo dhan oo lagu sheekaysanayo oo ah mid aan la xusuusan karin waa iska hadal, laakiin tixdu waa mid sanayaal la xusuusan karo oo qalbiga lagu hayn karo. maantana waxaan ku soo ururnay tix iyo tiraab ama hadal iyo horaar. haddaan nahay fanaaniinta Soomaaliyeed labadaba waan haysanaa oo riwaayadaha marka aanu dhigayno waan hadalnaa, riwaayadaha marka aynu dhigayno waa geeraarnaa, riwaayadaha marka aynu dhigayno waa heesnaa. intaba waa isku haysanaa labadaba. abwaan Maki Xaaji Banaadir maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore ayaa ugu dambeyn kulanka soo xiray. barbaariye Bashiir Cali Xuseen intaan iyo in ka badan waa ka mutaysatay magaca jiro dhima oo aan noolaan kii wax loo dhimaayo dheerago haleeyahay waa isla socota haye marka qaladaad laxanka ka dhacay abwaanka gabadha qaladaadkii laxamada ka dhacay kamid ah iyo suugaanta oo joogsigeeda iyo agadkeeda lala soco. على كل حال وحي علم عن ما انت كلا فايدي سني اما اللي يسوي دارسدي حدي هلا كره يسول وينتي بشير علي حسين iyo si sagootidiisa oo mar dhow bixi doono insha Allah maanta intaasay noo ahaanaysaa. waa qoraan soo dhaweey doono buugaagtii oo qoray oo ay kamid yihiin hadii alla ku rooyahay buuggii darajiya xilliga mudan magaalada yaaliya la iska hormari. intaasna ummadda Soomaaliyeed ku boorideynaa waa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin ku soo dhawaada xarunta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta oo u dhaxaysa bacda fanka Soomaaliyeed oo aan la kala xigin oo koox walba maalintay doonto ay ku qabsan doonto hawsha ay rabto. barbaariye Bashiir Cali Xuseen ayaa muddooyinkii dambaba waxa uu ku sugnaa caasimadda dalka Soomaaliya isagoo ka qayb galayay kulamo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho.